Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij aynu ku eegi doono dilal qorsheysan oo lagula kacay saynisyahano muslimiin ah kuwaasoo ay fulisay hay-adda sirdoonka dalka Israa'iil ee Mossad. 1960maadkii waxaa la aaminsan yahay in hay-adda sirdoonka dalka Israa'iil ay dishay saynisyahano badan oo muslimiin ah. Sannadii 1967 Mossad ayaa dishay saynisyahan u dhashay dalka Masar oo ku takhasusay arrimaha nukliyeerka kaasi oo lagu magacaabi jiray Samir Nuqayb. Samir ayaa lagu dilay shil gaari oo ka dhacay dalka Mareykanka isagoo la sheegay in uu maalmo kadib qorsheynayay in uu ku laabto dalkiisa hooyo si uu aqoontiisa ugu caawiyo. 1980kii saynisyahan kale oo u dhashay dalka Masar ayaa lagu dilay hotel ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Wuxuu ahaa aqoonyahan ku takhasusay arrimaha nukliyeerka waxaana dilkaasi ka dambeeyay sida la sheegay hay-adda sirdoonka Yuhuudda ee Mossad. Saynisyahankaasi ayaa xilligaa gacanta ku hayay barnaamijkii horumarinta quwadda nukliyeerka ee dalka Ciraaq waxaana lagu magacaabi jiray Yaxya al-Mashaad. 1991kii sirdoonka dalka Israa'iil ayaa la aaminsan yahay in ay dil ku fuliyeen magaalada Paris ee waddanka Faransiiska saynisyahan u dhashay dalka Lebanon kaasi oo lagu magacaabi jiray Ramaal Xasan. Ilada Ramaal Xasan ayaa sheegtay in ay dilkiisa ka dambeysay hay-adda sirdoonka dalka Israa'iil ee Mossad. gebi ahaanba waxaa gurigiisa laga waayay dhammaan buugaagtii uu kaga hadli jiray dhibaatada Yuhuudda. 1997 jaajuusiin ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa ku fashilmay isku day ay ku doonayeen in ay ku sumeeyaan madaxii siyaasadda kooxda Xamaas Khalid Mashaal waxaanu falkaasi ka dhacay dalka Jordan. 2010kii waxaa sirdoonka Israa'iil magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan ay ku dileen saynisyahan lagu magacaabi jiray Mas'uud Cali al-Muhammadi. isla sanadii 2010kii Majid Shahrari oo ahaa saynisyahan u dhashay dalka Iiraan ayaa lagu qarxiyay gaarigiisa magaalada Tehran. dilkaasi waxaa si toos ah loogu eedeeyay Mareykanka iyo Israa'iil. labada dowladoodna wax jawaab ah kamay bixin eedeymaha loo soo jeediyay. sanadkaasi sirdoonka Israa'iil waxay dalka Qatar ku dileen Maxamuud al-Maxbuub oo ahaa taliye sare oo ka tirsan Xamaas ee ka dagaalanta dalka Falastiin dhinaceeda galbeed.